xasan cali khayre ayaa si la yaab leh ula dhaqmay askari dhegaysan waayey khudbada uu jeedinayay. Ra'iisul wasaaraha ayaa amar ku bixiyey in ciidamadii booliiska ee laga keenay lagu celiyo askari xilli uu khudbad u jeedinayay dhegaysan waayo oo la sheegay inuu hoos ula hadlay askari kale. Arrintan ayaa dhacday markii ra'iisul wasaaruhu uu booqday ciidamo loo diyaarinayay sugidda amniga Muqdisho, waxaanu si kulul u bahdilay askariga isagoo si kulul ula hadlay. waxaan codsanay ciidan in la isu keeno. ciidanka la isu keeno waa idinkaa laydinku tijaabinayaa wixii hore u dhici waayey oo ah 90 maalmood kadib istaag soo aniga ma hadlayo yaa ka tirsan tahay orod bax u tag booliska hadduusan garan karin marka ra'iisul wasaaruhu hadlaayo inuu dhegaysto looma baahna inuu amniga magaalada sugo soo sidaas ma haddii uusan sugi karin inta lala hadlaayo marka horaa lagu soo khaldamay halkan in la keeno waxaa ka mas-uula ciddi keentay marka hore haddaan la soo barin intaas askariba ma aha askariga waxaa la rabaa inuu meel taagnaado usan dhaqaasin dhegaystaa waa amiirta la falayo hadduu askarigii rabo meesha ra'iisul wasaaraha ka khudbaynayo inuu isaga ka khudbeeyo waa dhibaatooyinkan haysta mid ka mid a soo maha sidaa